الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي المتزان ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر إلا أمر فيه العفو بيلي إلا يدك سليمي isku haystay ishuu naga ridayay dhagtu naga gooyay marka koowaad wuxuu oranay waris cafiya hadday diidaan xuquuqdooda loo kala goynaya waa mas'ala dambe cafiska musaalaxa ku xiga musaalaxada kadib waxa ku xiga maxay muhaakama iyo qadaa iyo xukun laakiin nabigu qadiyad bal looma keenin buu leeyahay Anas ibn Malik illa wuxuu ku yiri maxay isaafiya ولذلك بس صحابتنا سحوقا وقلقلت waxaan oran karnaa saxaabigii la oran jiray Qays ibn Asim al-Minqari reer Banu Tamim Hanaf ibn Qays mukhadram ka ahaa ninka isku qabiilka ahaayeen waa saxaabi geel badna oo xadiis ay tilmaamayso inuu nabigu ku yiri hada sayyid ahli al-wabar reer baadiya waa ninka uu odayga uu nabigu ku yiri ninkan nin qabiil ka dhashay oo xoolo badan buu waxay culimadu soo arooriyaan isagoo naadigii reerka fadhiya oo la soo waramayo ayaa waxa la kor keenay wiil uu dhalo meeyda iyo kii dilo la wado dabeetana waxay dhahaan sidii uu fadhiyay jilsadiisa muu bedelin ee qoladii meydka iyo ninka siday buu aaga wuxuu yidhi kan waa kan nixiseen wali wuxuu naxsan yahay kan wax dilay oo la soo xirxiray ayuu leeyahay warkan waa ka bajisay barta xariga ka fura kii uu la hadlay wuxuu ku yiri wariya adigu tolka tiradoodii waad yareysay cadawgood waad u jabisay raximka waad goysay uu waani kadibna wuxuu yiri wariga iska sii daaya maydkana buu yiri diyaariyo markaa tajiiskiisu dhamaaday ee la xabaalayo lagu tukanayay yeedha islaantii dhashay ninkan dhintayna reera iyadu ma ahayn buu yiri geeyga dhex tago makti ka siiya dabeetana warkiisii buu iska watay baa laga yani ninkan cafigiisii wuxuu gaartay inankiisii iyo meeyda inta loo keeno kii wax dilay intuu sii daayo haddana inankiisa maktiisii uu isagu bixiyo oo islaantii iyo inamada walaalaha iyo kuwan inaanay daba soconin oo mushkiladuba dhicin inuu isagu makta bixiyo dabeetana iska cafiyo bal dagaalkaynu ka waramayna Uhud ahaa waxa ka soo qayb galay Hudayfa ibn al-Yaman iyo abihi Hudayfa abihi dagaalkii Badr markuu dhacay yimaadeen saadaradeed si fiican reer Madiina uma noqon lama aqoonin dabeetana dagaalkii markii uu dhacay ee raayadii muslimiintu ay dhacday ee dadkii isku qaldamay ayay muslimiinta dhexdoodii seefta isku la jeestanay oo askaranayeen Hudayfa wuxuu arkay abihi iyo seefta lagu boobayo dabeetana saxaabadii ku qayliyay abi isagoo leh war waa aabahay ninka intuu qaylinaya kow kaga siiyay yaman saxaabada dishay Hudayfa abihi saxaabadii baa dishay qaswatu Uhud baa lagu dilay wuu yima wuxuu arkay in abihi la dilay غفر الله لكم انت يورسكيت الهي دنبينا idin hadhaafo ku yiri وأبيه يولد إليه أو صاغ إليه ومركو يمين وأركين ككوكتو أبيه دنتي أيوه حقوق محي غفر الله لكم حديث كلمة كورين يا وحيد هذا بعد ضاس السداء وقبصتي مو خير بيلين بين هذين حذيفة يعني واحد دريم مشى هدول ديجو قصر رأي بنادم كوحكة لجارة شرعه إنه ينبه نيدي إنه يعفس كل نقطة هذا السياسة هاي شرعه حبني سياسة الداخلية ما ضحضونا وما ضعفس كل نقطة هذا السياسة الخارجية قال سي الله نقمة يتهي شرعه حبني لعفيه كره وحكى سكاية هديتي مصالحة كذب وحكو حكم حي محاكمة يا قضاء يا حكم لكن نبي قضية بلو مكين بولي أنس بن مالك إلا يوحكو يرمى حي إسعافية ولذلك بس صحابة ينسحوا قنوط حين ركرنا صحابي اللي ورنشري قيس بن عاصم المنقري رير بن التميم حنف بن قيس
mukhadramka ahaa ninkay isku qabiilka ahaayeen waa saxaabi geel badnaa oo axaadiista ay tilmaamayso inuu nebigu ku yidhi hada sayidu ahli lwabar reer baadiyaha waa ninka ugu odaygaa uu nebigu ku yidhi ninkani nin qabiil ka dhashay oo xoolo badan buu ah waxay culammadu soo arooriyaan isagoo naadigii reerka fadhiya